ururka dhalinyarada ee deegaan kalkaal ayaa soo gaarsiiyey agab waxbarasho degmada Gumburaha oo ka tirsan gobolka Hawd. Munaasibadan ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka heer gobol iyo heer degmo, isla markaana waxa ugu horeyn bartaasi ka hadlay ururka dhalinyarada mas'uuliyiintaasi deey qalabkan agabka waxbarasho oo loogu talagalay da'yarta sidii aqoontooda kor loogu qaadi lahaa. Ayaa la xaliyay ayaa ugu horeyn ba ka hadlay qalabkan ay sidaan ee munaasibadan loogu talagalay. Aanu sameyn doonaa oo aanu ballan qaadaynaa inaanu maanta labadii kalaas ee ugu horeeyay aanu dhagax dhigno oo aanu halka ka sii bilowno annagoo ururkuna runtii aad iyo aad dhalinyarada maanta dibadda joogta ay u heelayeen inay maanta dalka iyo dadkooda iyo deegaankooda wax la qabtaan oo aanu halka dhisi doono oo aanan idinka hari doonin ilaa ay dugsi sare ilaa aynu arki doono riyadeena maalmaha kamid ah degmada Gumburaha iyo Balugubadleba oo jaamacado waaweyn ay ku yaalaan. Waxa ka hadlay maayirka degmada Gumburaha oo u mahad celiyay agabkan waxbarasho ee ay dhalinyartaasi ay soo gaarsiisay degmada Gumburaha. Halkaasi ka hadlay maayirka degmada Balugubadle, xogayaha degmada Balugubadle iyo mas'uuliin iyo mudan soo qayb galay xafladaasi. Isla markaasi kadib mas'uuliintaasi waxa uga mahadnaqeen ururkaasi deeqda soo gaarsiiyay waxbarasho, waxaana dhamaantood iska daba mareen sidii loo kobcin lahaa. saddexda fasal waa idin sheegayay dugsi hoose oo kaliya maaha, waa dugsi hoose dhexe ayuu ku magacaaban yahay. waxa gala ilaa 8 maanta way u fadhiyaan. waxbarashada hadday imika labadii sanadood ee hore ee ina dhaafay 19kii iyo 18kii ba ardaydii ka soo baxday degmada Gumburaha aydka way u fadhiisteen oo gobolka Hawd ayaa lagu fadhiisiyay. laakiin maxaa u maleynaysaan bal saddex fasal oo la yiri ha u fadhiis waxa ku dhigtaan ilaa iyo 8 galiyay degmada oo iyaduna ay halkaasi ka dhisan tahay qaybtii islaamiga, qaybtii maadigana maanta ay dhalinyarta deegaanka ka soo jeedaa ay maanta ku darsanayaan 2 fasal oo ay dhameystirayaan iskuulkii hoose. markaasi dhexana aynu insha Allah u gudbi doono mataqaana gobol ahaana wax fara badan ayaanu insha Allah ka taageeri doonaa. assalaamu alaykum. aad kaaga mahadnaqayaa faalintii koowaad ee aad noo timaado ama aad degmadan timaado oo aanan barasaabadii hore ku qabin in ay hawlaha noocan oo kala ah nagala qayb galaan, balse maanta waxaan ku mahadnaqayaa inaad u eeg tahay ama ay tahay nin weyn oo hawlaha maanta taagan aan filayo inuu nala dhaqaajinayo. nimo gobolka waxaan u sii raacnaanu u sii galbinay degmooyinka Balle Cabanay la Sayla. goor habeenimo ah ayuu dhex guureynay gobolka Hawd. runtii maan arag wasiir waxbarasho oo xilligaas socda ilaa 6 socda. waxaan ururkan deegaan kalkaal u sheegayaa alaabta keeneen ay ku mahadsan yihiin, balse waxbarashada gobolka Hawd maanta halkay maraysaa ay ka qiimo roon tahay halkii gudoomiyaashii waxbarashada berigii hore ay ku hayeen. si badin maayo waxa iskuulkan deer male waxaan isku tashanay in deer sameeyno si kii daahir dibad culuw ee aanu contribution ku dhisnay qaybteedana waan ka qaadanaa hadii la aadanahay degmada Balugubadle. ururkan khayriga ah horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa marka hore. Soomaalidu waxay tahay marka xog la helo xog la heliyaaba war la heli. horta waxa ahayd intaanay maanta noo iman marka hore in xog badan horta ay soo helaano aan soo wareysano sida ayaale nageeye iyo Cabdiraxmaan Kiisaba in horta marka hore soo wareysano. waxa weeyaan imaka muddadan joogay gobolka waxa ahayd 2 sanadood ayaan malaynayaa haddaanay 2 bilood meelahaas ka dhiman adigu 2daas sanadood waxa weeyaan ugu horeyntiiba si deegaanku wax u qabsadaan war ummadda waxa wax lagu horumaraa war waxan baan haystaa wax igu dara cid kasta waad ka adkaanaysaa waana ku khasban tahay. ugu horeyntiiba waxaan ka bilaabay horta 4 degmaba inay helaan ay dadku isku tagaan oo dabeetana waxaan u sameeyay baha la yiraahdo account baan u sameeyay 4 degmo si ay ugu tartamaan. 4 degmo horta aynu ka hagaajino iskuulada 4 degmo sida deerka oo kale galaasaynu kurino kale oo inta contribution la sameeyo dawladda wasaaradda ilaahay wax baan hayna wax nagu dara.
oo gacmo furan ku soo dhaweynaynaa inay community kasta amba ururo kasta oo doonaya degaankooda inay wax u qabtaan wax kasta oo xagga gobolka inaan u fududeyno inaan dhul la raadino aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay waa urur dhalinyaro waxaan rajayn doonaa insha allah waan ilaahay ka rajaynaya in la helo ururka haweenka qurba joogga gobolka hawd oo iyaguna sidan oo kale la waxbaanu qabanaynaa ku tartamaya ururka odayaasha amba ragga odayaasha waaweyn oo iyaguna sidaas oo kale wax qabanaya oo maalin maalmaha ka mid ah ayaanu waxa qabanaynaa waxaan ugu mahad celinayaa degmada Gumburaha waa degmadii ugu horeysay marka laga tago xarunta Baligubadle iyo socdaalkan ku soo maray degmooyinka ee ugu marti qaaday inaan meel dhagax dhigo iyo inaan magaranaysaa aan imaado marka aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin taa isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Hawd iyo mas'uuliyiintaasi ayaa dhagax dhigay 2 galaas oo lagu kordhinayo dugsigaasi hoose dhexe ee degmada Gumburaha halka ay ballan qaadeen deegaankuna in ay 2 galaas oo kale ku darsanayaan ururkuna uu ballan qaaday in ay sidoodaba 2 galaas ay u dhisayaan waa Axmed Maxamed Cawaale warbaahinta qaranka Soomaaliland degmada Gumburaha